حوجة ومد صوماليات حوجة ودنيته صوماليات ميل باجوكتا وان سلامة عافمات كوارا سود ووادا برتن وبرتيني waxaan ri'aasha ka sameynaa hees cusub sharma boy iska leeyahay umad badan oo Soomaaliyeed ayaa ii soo dirtay waxay dhahday heestaas ilaa waa inaad ka soo hadashid ri'aasha ka sameysid laagta subscribe-ka waa dhinaciina waa mahadsantihiin dhegeysi wanaagsan halkan ayaan ka bilaabaynaa inta kaliya waxay ku tusinaysaa cunugan sharma boy leeyahay waa abwaan dhaba waxa uu la socdaa social media ereyada lagu hadlaayo iyo dadku waxa ay ka guuxaaya umad Soomaaliyeed ee dareesay yihiin ayay heestan ka turjumaysaa kuna socotaa Daar Calasow inuu yahay nin qabiilista ma Daar Calasow boqol jeer baan ku soo celiyay Daar Calasow qabiilista ma waa danayste ninka inuu soo qabiilista ahayn uu yahay danayste Daar Calasow dadka isku diraaya dantiisa ka arkay iyo si lagu heesta waxa ay qadar xigmadeeda حق بقصة عادتكم بدريميان رابك وحال ويقانا نكان واحد يكره وتو باج يريسا نكان وتو باج ومتصور على أصابع هاي تو باج ملاك روح وكان تاي 19 إن محدش قصة قلب قصة عشان اللي حد وكان تاي سومالي واحد أقول شيء تو باج عصبة أقول شيء وعصبة سومالي أوبري لو كن لو عتني كودا تو باج ما نقول شيء نكان واحد وكرة بقرنا واحد مودا يسيد أقول ما يوددوا مرة دبعتها ومارت تشيلك أصلا مرة إن ماشي ما أنت كتوراي وتو باج يريسا بوكا حتى صلاة والله يابا واحد سمي صدق ولا حسابه هيستان waxay u qaadataa in madaxa Soomaaliya loo qaado in xaflad walba laga qaado heestan waxay ku qaadataa in cunuga la soo dhoofiyo oo qurbaha ka heeso cunugu waa libaax cunugu waa in maaha kaliya fanaan inuu yahay waa abwaan cunuga xigmad baa ka socotaa hadda koor baa waxa la yiraahay boqolaal sano ka hor nin caan ka ahaan jiray Soomaaliya maanta caan waxa laga yahay social media bariga jirtay nin la dhigi jiray cigaal shiidaad wuxuu sameeyay maalin nin asagana sidoo kale caan aha ayaa dhintay dadka dhan ba isku yimaaday xafladii odayaal dad walba dad caana meel bal iskaga yimaaday waa boqolaal sano ka hor meydkii oo la sida waxa hormaray cigaal shiidaad baa hormaray dadkii baa la yaawar cigaalo war ka leexo war meyd ka leexo war kaga leexo hadhowtu markii meydkii la soo xabaalo laga soo noqdo la isku yimaado maartay hilib iyo adduun la cunayo geed hoosta la fariistay odayaashii sheekaysanayaan ninka xigmad miira buu maadaama caanaha cigaal shidaad waa la waraysan waxaa la yidhahay war cigaal meydka maanta hormarta xigmadda ku jirta maxay tahay meydka ma wuxuu wanaagsan yahay markii la hormaro mise markii gadaashii la margormuu wanaagsan yahay markaas wuxuu yiraahday meydka wuxuu wanaagsan yahay inaadan noqonin kala sida oo meydka inaadan noqonin ayuu wanaagsan yahay dhahay hadda ummadda Soomaaliyeed Daar Calasow afka kooda haysa inuu xun yahay inuu khaldan yahay inuu ummadda Soomaaliyeed nafta u keenay waxa wanaagsan inaadan noqonin kala hadal hayo ayaa wanaagsan inaadan noqonin iska ilaaliya waa wax xun dhibkeeda leedahay in dadku ku nacaan in dadku dhibsadaan ma fiicna waa lagu soo heesayaa waa lagu soo caynaya qoraal baa laga soo qoraya kaamata laga soo qoraya fadhi kuturka laga sheekaysanaya adduunka dhan waxa haysanaysa inta dadka inkaartooda kugu socoto iska ilaali ha noqonin kala haysto ha noqon kala laga sheekaysto ha noqon kala dhibsado ma wanaagsan waxa sameeyso dhan waa la xisaaba cadawga dhalinyarada waxa suubiso dhan waa la xisaaba kaliya ma ahan inuu ummad Soomaaliya xisaabinayso sidoo kale malaa'igaha karbaha saaran ayaa xisaabinaya cunugu wax lama haysan karo heestan lama haysan karo waa inay ogaataan heestan waa dab lama haysan karo intaas ku soo gogobeenaya ha noqonin ka laga sheekeeyo ha noqonin ka la dhibsado ha noqonin ka ummaddu maartay ku noqoto laf dhuunka ha noqonin Soomaaliya ha noolaato maantay waa maalintii xorriyadda waa maalintii Soomaaliya ummad Soomaaliya waxaan u rajaynayaa barwaaqo badhaadho iyo waxa dhigi jiray inuu Ilaahay bogooda burcad isku mariyo inuu ummad Soomaaliya Ilaahay isku soo dhaweeyo waxaan ka baryaa Ilaahay boqolaal sano oo soo socdo sidaas inay u dabaaldegto ayadoo ka sii awood badan iska jecel intaas ayaan ku soo gogobeynaynaa noolaad intay nolol jirto